wanaagi wuxuu yahay dibiyo baahi goolareebo barwaaqiyooda la gaadho dibiyo baahi goolareebo barwaaqiyooda la gaadho bogsanay allele waan bogsanay allele waan bogsanay eleloy eliyaloy bogsanayo waa badhaadhay dayaci wakaa soo bidhacne bishari waa bilqayre ay hadayda eloy eliyaloy bogsanayo waa badhaadhay dayaci wakaa soo bidhacne bishari waa bilqayre. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. لن يروا waxaan ka soo sheekaysanay labadii kaliib ugu dambeysay Soomaalida magaca ma Soomaal ba mise waa Soomaal aragti badan oo kala duwan ayaa isdhex socday Soomaal oo anigii sharaxay Soomaalna beri baa ma aragtay la oran jiray dad baa dhihi jiray niman adigu waxa weeye qoraalada nin walba waxba uu sameeyay laakiin tii loogu badnaa waxay ahayd Soomaal soona waanagii sheegnay in loo yaqaano xoolaha gobolada qaarkoodna looga yaqaano hilibka looga yaqaano waa ereyga Soomaalida afkan Soomaaliga waa af qadiim ah oo afafka dunida ugu qadiinsan ayuu ka mid yahay يعني aragtiyo kala duwan baa jirta xataa ka xilli kale ka sheekaysan doonaa waxaa jirta xataa maartay in carabta la sheego magaca carbeed ereyga laftigiisa macnihiisu inuu yahay ruux wanaagsan oo suuban waa ruux wanaagsan oo suuban baa ereygaas markii la macneeyay lagu macneeyay carab haddaba afafkii hore ee carabtaasi ku hadli jirtay dee af Soomaaligan unbuu ahaa waxaa jirta af Soomaaliga wuxuu soo gelayaa kooxda la yiraahdo afafka ku hadasha afafka kushitiga waa anaga ka soo sheekaynay habla group qolada loo yaqaano inay yihiin waa anaga ka soo sheekaynay habla groupkan marka 44 qolo ayaa ku hadasha afafkan kushitiga loo yaqaano oo maxaa la yiraahdaa reer xaam ah waa baajo saax maxaa la yiraahdaa bajeelo afar oromo waa badan 44 weeyaan oo reer macnaha qolo oo ku hadasha afafkaas ku hadasha af Soomaaliga inuu qadiin yahay carabiga xataa uu ku dhex jira carabigii hore oo ka mid ahaa ereyga carabna ma aha carabtan cad ma aha macnaheedu ereyga carab waa ninkii suubanaa ruuxii suubanaa ee wanaagsanaa baa carab la yiraahdaa horta xiisa kale aan ka sheekayn doonaa waa mowduuc dheer oo faahfaahintiisana wata haddaba marka aan tusaale gaaban oo aan soo qaato nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kolkii uu midida saaray nabi ismaaciil calayhi salaam ismaaciil calayhi salaam uu lahaa yaa abati ifcal maa tu'maru satajidunii in sha allah min asaabiriin mididii oo dul saaray بالقرآن كثير أرجع وحال استعماله تفسير أئمة تفسيرك ابن كثير جلالين يساوي يعني أئمة ابن كثير محل تفسير سميسا وكوض ما عرفت مشهور سن إلا قرنايا
mindi ayuu isticmaala ereyga mindi ayaa la isticmaalay balshuf waxyaalo badan ayaa jira ereyo badan oo fara badan oo af soomaali ah oo haddana laga dhex helayo weliba kolka waxay ku dambeeyaan bilqur'aan alkariim ayay ku dambeeyaan ereyada qaarkooda sida noolkii oo kale ereyo badan baa jirta carabiga markaan carabta ka sheekaysanayna ayaan geli doonaa mawduucaas insha allah haddaba soomaali dadkan soomaalida ee innaga ah waxaan lahayn habdhaqan dhismeed oo sidii qaabkii dowladda oo kale ah qaab dowladeed oo kale u samaysan dhaqan dhismeedkani wuxuu qeexayaa qoloqolo waa qabiil qoloqolo buu qeexayaa muxuu sheegayaa wuxuu leeyahay matalan qabiil waxaa la oran karaa buu leeyahay dad dhul leh oo deegaan lagu garanayo deegaankaas reer hebel baa dega la leeyahay laba dad xoolo leh inay yihiin oo xoolo fara badan hantidii soomaalida isku faanto waa hantidaasi xoolaha iyo beeraha haddaba dadkan waa inay lahaadaan dhul waa inay lahaadaan xoolo fara badan oo beri ka maalin waxay doonaan ku iibsan karaan ama mag ahaan u bixin karaan ama ayagana magna qaadan karaan xoolahoodana waa inuu lahaadaa sumad u gaar ah qoladaasaa lagu garanaa sumadan markii la arko xuduud kale lagu arko oo qolo kale ah reer hebel waayo qoladan si loo yiraahdo ayay u samaysteen nidaamkaas isla markaana waxay samaystaan duub qabiilka marka sidaas ku samaysan yahay marka oo ku dhisan yahay haddaba soomaalida sideedaba waxay u kala qaybsantaa qolo kasta oo meel kasta joogta oo dhulkan soomaalida ay leedahay joogta waxay u qaybsamaan 3 qaybood ayay u qaybsamaan maxaa la yidhaahdaa 3 qaybood 3 qaybood waxaa la yidhaahdaa wadaad waranle iyo waable wadaad waan garanaynaa waa culummo aqoonyahankii waaye waa culummadii culamaa udiinkii weeye aqoonyahankii weeye waranle marka haddaba marka la leeyahay dagaalyahan ma aha ee waa xoolo dhaqato laakiin iyaga ayaa u badan oo dagaallo la kulma ama xoolo lasoo dhacay ay soo dhiciyaan sidii dagaal ku galaan ama kuwooda maaragtay la dhacaya ee difaac galayaan ama iyagaaba laga yaaba inay xoolo kala doontaan ma ogtahay waa wax kasta waa macquule waranle waable ayaa jira marka kan saddexaad waable waa xirfadlihii ninkii maaragtay gambarada samaynahayey ulihii maaragtay udbihii iyo dhegihii aqalka hagaajinayay marka hore ilan waa geedo lasoo guray un haddana waa maaragtay midiyihii wax lagu goyn lahaa masaartii gudintii wax walba farsamaynayay weeyaan marka wuxuu noqonayaa waable haddaba afkan af soomaaliga waa afka dunida ugu qadiinsan maaha ka mid maaha markaan afafkii hore ee jiray maaragtay yani afkii soomaaliga un weeyaan laakiin wuu rogmay hadda ka hor clib yar oo aan soo qaadan ayaa jirtay oo aan kaga hadalnay afkan soomaaliga aan kaga hadalnay inuu taqayur fara badan kusoo dhacay u bedelmay laakiin beryo dhow adigu qarniyo dhow qaabkii loogu hadli jirayna tusaalaan ka bixiyey tusaalahaas oo ahaa matalan ninkii la bariidin jiray ee aan sheegay hebel xalay maxaad ku bariday ee dhihi jiray xalay nabad baan ku bariyo xalay baan duubay oo ku roogay yaan waraabo qadis kula farayeeraystay kolkaabaa jeex qaar horaadka lugtool kula jalaan jooshay waa soomaali dhalinyaradan haatan joogta ee xataa dad waaweyn badan oo dad fara badan oo waaweyn oo jooga aanan keeni karin waxa weeyaan xalay baa dubayo ku roogay dubayo waa anigii sharxay waa digirta kolka la qalajiyo ee masana hadhowdi la daqiijiyo
waa la dubay waa la saloolay waxaa laga dhigay sidii saloolkii loo dubay ama loo shiilay ciid baa lagu shiilaa inta badan oo qaleel baa lagu shiilaa kolkaa kadib waa la daqiijiyaa iyadoo la daqiijiyey baa misna waxaa loo sameeyaa qaabka shuurada ama soorta oo kale loo sameeyaa marka dubayo ayay qaadeen magac la yidhaahda ayay la baxaysaa haddaba dubayo kuroobe waa kurta wax lagu cuno kur iyo xeero waa garanaynaa kurta wax lagu cuno marka kurta kuroobe baan waraaba qandis kula fareeraysto waraaba qandis waa caanaha kolka ay kasoo tagaan macaankii aysan weli u gudbin dhanaankii aysan u gudbin dhanaankii hadda garoorkii maaha fadhigii maaha oo ciirtii maaha weli lama gaarin soomaalida koonfurta waxay yidhahdaan manyac intaysan noqon soomaalida koonfurta kala yimaada soomaali fara badan baa tidhaahdaa manyac marka dhanaankii ma gaarin marka suusaca weli ma gaarin marka waxaa la yidhaha waraaba qandis kula fareeraystay buu yidhi kolkaasaan jeex waa maqaarka yar inta badan oo isticmaalaan in lagu tukado ama kolkolna in lagu fariisto waa maqaar weyn oo jiifa ma noqonayo waa mid yar ee dhuudhuuban jeex baa la yidhaha marka aan qaar horaadka qaarka hore yaa intuu saartay qaarka hore ayuu lugtool waa barkinta geedka ka samaysan lugtool dhigtay kula jalanjooshay luguhiiu saartay jalanjool baa la yidhaha fadhiga kolkaa fadhisid ee lugahaada isdul saaran yihiin waxaa la yidhaahdaa jalanjool baa la yidhaahdaa cashirkeena halkaasu ku egyahay qaybta kale ayaan ku dhammaystiri doonnaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dayacii wakaa soo bidhaane bishar